بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته وسار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد halkan waxaan ku soo jeedinaynaa insha Allah mowduuc gaaban oo ku saabsan shubhada lagu keenay tawxiidka muslimiinta oo ah inuu tawxiidku u qaybsamo saddex tawxiid oo kala ah tawxiid loo nisbeeyey rabbi iyo mid loo nisbeeyey ilaah iyo mid loo nisbeynayo alasmaa wasifaat horta si guud iimaanku waxaa la yidhaha laa yatajaza ma kala juzoodba oo ajzaa ma noqdo iimaanku waa shay kulli ah oo aan inuu kala juzoobo aqbalin weeye waatawxiidu laa yaqbalu اlinqisaam tawxiidna wax qaybsama ma aha nabigeena suuban calayhi afضal الsalaati wa atamu الtasliim xadiid saxiixa wuxuu ku yidhi umirtu an uqaatila الnaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila اllah xadiidkaas nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka sida lagaga hadhina wuu sheegay wuxuu yidhi faidaa facaluu dalika casamuu minii dimaa'ahum hadday laa ilaaha ila allah dhahaan way iga reebeen dhiigooday iga reebeen waxaa kalood ogtihiin xadiidkii saxiixa ahaa ee ninkii usaamata bnu zaydin uu dilay bacda an qaala laa ilaaha ila allah intuu yihi kadib nabigu calayhi salaatu wasalaama yihi maxaad u dishaa qataltahu bacda ma qaala laa ilaaha ila allah usaamana wuxuu yihi yaa rasuula allah inahu kaana mutacawida wuu magan galayay kelimada ilaa nabigu ka gaadho afalaa shaqaqta can qalbihi aqaalahaa am la ma adigaa jeexay qalbigiisa si aad u kala ogaato inuu ilaahay dartii u yidhi iyo inuu mutacawid ahayo dee uu magan galayay ma adigaa kala ogaaday halkaa waxaad ka fahmi nabigeeni suubanaa calayhi salaatu wasalaam oo risaalada la inoogu soo dhiibay in waxa uu dadka ka aqbalayay laguna nabadgelinayay qofkuna macsuumu dam ku noqonayay tawxiidyo kala duwanaanay ahayn ay ahayd laa ilaaha ila allah oo keliya sidaad ogtihiin ilaahay asmaa badan buu leeyahay asmaadaa uu leeyahay haddaan dhahno ama sifaad buu leeyahay haddaan dhahno tawxiidyo ha loo qaybiyo hadda wuxuu noqon tawxiidkii fallaadh daba furan hadda niman baa iska qaybsaday saddex tawxiid bay ka dhigeen kuwo kale hadday yimaadaan ay afar ka dhigaan wax lagu bushin ma jiro kuwo kale hadday sii yimaadaan shan iyo lix ka dhigaan wax lagu bushin ma jiro marka waxaa la yaab leh waxaa jirtay maalin maalmaha ka mid inaan weydiinay nin qoladan tawxiidka qaybinaysa aan ku nidhi waryaa tawxiidkan aad qaybinayso rububiya uluhiya maxay kala yihiin tawxiid rububiya waxa weeyaan buu yidhi tawxiidka ay iskaba haystaan dadka xataa gaaladu ay haystaan tawxiid uluhiyana waa tawxiid ilaahay inuu muto cibaadada oo kan oo kan oo kan waxaan idhi markaa yaa ayuha nnaas ucbuduu rabbakum bal ka war oo cibaadadii oo dee rabbi laleeyahay bal rabbigiin caabuda wuxuu yihi rabbigaas yaa bimacna alilaah waa wax iska ciyaaraba markaad eegto eeg rabbiguba la sheega hadda meesha looga jeedaa bimacna alilaah wey oo de sidaas waaba ciyaare ucbuduu rabbakum ilaahay subxaanahu watacaala ilaaha kumuu karay inuu yidhah waxa weeye tawxiidka in la qaybiyaay waa ifsaad weyn oo diini ah wey in la qaybiyo ifsaad weyn oo diini ah lam yahbut can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam walaa can الصaxaaba walaa can الtaabiciin walaa can taabici الtaabiciin walaa can الsalaf الsaalix walaa can اlquruuni اlmufadala walaa can اla'imati اlmujtahidiin cidnaba uu ka sugnaaday tawxiid la qaybiyaay ma jiro nabigeenii suubana ha ahaado ama saxaabtiisii ha noqoto ama kuwii saxaabada raacay ha noqdaan
ama kuwii sii raacay kuwa ha noqdaan qurunta mufadalada ohoo dhan dhe salafkii haddana dhe waxaad tidhaahdaa ummadii a'imadii la yaqaanay ee diinta macruufka ku ahaa ee mujtahidiinta ahaa dhe cid laga maqlay ma jiro. ibnu taymiya laga maqlay iyo atbaacdiis yaa laga maqlay. waxaa kaloo runtii wax lala yaabaa haddaan saraaxo wax laysugu sheegin oo biyo laysu mukhuursanaado islaamkeenna hufnaantiisa la gaari maayo. islaamkeenna hufnaantiisa la gaari maayo. waxaa la yaab leh dadkan towxiidka saddex u qaybiyey mujaadaladooda inay ku saleeyeen oy dhaheen waxa aan qaadanayno min alkitaabi wasunna ha noqdo. min alkitaabi wasunna ha noqdo. waaya min alkitaabi wasunna kitaabka ma laga soo kitaabka qur-aanka ma ku jirtaa towxiid la qaybiyey. sunnada nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam ma ka mid tahay towxiid la qaybiyey. salafu saalix ma ka maqalay asxaabtii nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo dhan wax ka mid ahoon ka maqalay towxiidka in la qaybiyaay ma jira. waa arrin isweydiin la wey. haddaynu helo waqtigaa iyadaa towxiid la qaybiyey haddee ha la qaybiyo. maxaa kaloo arrin yaab la runtii oo wax lala yaabo ah dadkan towxiidka qaybinaya waxay ku andacoonayaan xataa towxiidka gaaladu inay qaar lahaayeen oy muwaxidiinba ahaayeen gaaladii. arrinkaa waa arrin khatar badan ku ah diinta islaamka, aad khatar ugu ah. qofkii gaal islaamnimo u qira iyo hoggaansan iyo iimaan u qira isagaa xerada ka bixi. isaga ayaa xerada kaga baxaya. lianna nabigeena suuban calayhi salaatu wassalaam diintii lagu soo diray kitaabka qur-aankii ku yimid sunnada nebigu ay fasiraysay waxaa dadka kala soocayay ilahay inay waxidaan bay ahayd nabigana mutaabiciyaan calayhi salaatu wassalaam. mar haddaan nabigeenii suubanaa calayhi salaatu wasalaam lagu arag isagoo leh towxiid rububiya ku uluhiya ku asmaa sifaat isagoo leh dee wixii la keenaa dabadii oo towxiid ku saabsan waxaan jirin iga dheh. waxaan jirin iga dheh. waxaa timid maqaaladan odhanaysa muslimiinta qaarkood gaaladii baaba ka taqiinay muslimiinta zamankeennan gaaladii baa ka taqiinay iimaanka. gaaladii ayaa ka taqiinay iimaanka. waan soo qaban doonaa dadkan qaybinaya towxiidka qaar ka mida sida ninka la yidhaho ibnu baaz oo kale maqaalaadka uu ka aaminsan yahay towxiid rububiya ilaa uu ka yidhaahdo fircoon kaana muuqilan min qalbih. towxiid rububiya qalbigiisa ayuu ka yaqiininaya fircoon. waxaana caddaynaya sidii nebiyullaahi muuse markii ilaahay ka xikaayoonayey laqad calimta maa anzala haaulaa ilaa rabu الsamaawaati waalardi basaa'ira. hasoo adeegsanaya waad og tahay rabu samaawaat mooyaan cid kale inaanu soo dejinin basaa'ira. la yaab weeye. markaasu wuxuu leeyahay taasi waxay caddaynaysaa inuu fircoon ka yaqiininayey towxiid rububiya qalbigiisa inuu ka yaqiininay. oo macnaheedu noqonayo qofku wuxuu qalbigiisa ka yaqiiniyo qalbi ahaan u qaato waa muctaqadkiisa uuna caqiidaysan yahay noqon. iyoo la og yahay muctaqadka qofka towxiidka maxaan ku caqiideeyo qalbigiisa ka caqiideeya iimaankiisana cid isku khilaafsanayn la ogyahay. fircoon waxaynu ognahay markii nebi muuse rabulcaalamiin u sheegay towxiid rububiya qirayaa buu yihi ibnu baaz inuu isagaaba malaha meelaha qaarkood soo qaadaye uu yidhi fircawn yaa ku soo diray rabulcaalamiin wamaa rabulcaalamiin. su-aashiisii qur-aanka ku cadaydu qaala fircawnu wamaa rabulcaalamiin. fircawn wuxuu yidhi rabulcaalamiin waa kee maxaa la yidhaahdaa. nabi muusena wuxuu yidhi soo qur-aankii lagaga si xikaayoonayo rabu samaawaati waalardi wamaa baynahumaa rabbiga samaawaadka iyo ardada iyo waxa u dhexeeyaba abuuray weeye fircawnow aan kuu sheegay. fircawn wuxuu ku jawaabay inkaar meeshuusan dhaafin. wuxuu yaqiiniyey sida ibnu baas sheegi daa wuxuu yaqiiniyey iyo wuxuu qalbi ku haysta iyo wuxuu baadinsaday iyo wuxuu daahirsada waxa iskaga bax. wuxuu yidhi ina rasuulakum aladii ursila ilaykum lamajnuun. rasuulka la idiin soo diray oo mid waalan buu wuxuu sheegaya midaan maqal
وكان رب السماوات والأرض وبينهما شيء وأن كان له دوت سنيه إنه توحيد الربوبية إنه هايستو قلبي سكي يقينين يوقع إله فرعون كجار لئن اتخذت إلها غيري إلها أنيق أهين هداد يلا لاجعلنك من المسجونين هدنا وحسير ما لكم من إله غيري بل تاس توحيد الألوهية والربوبية دي أنكو صلابته ولي أنكو تشيرو أو فرعون فرعون كاس وليه ابن باز قلب جيسو كي يقينين أياه ابن باز هذا الذي سوى حكم ذا داتكو مبجر طائفة غير بني آدم إلا واللغو أبوري توحيد الربوبية هذا ابن باز بيكمت طائفة غير بني آدم أو كلا حتى أو نقيض التوحيد الربوبية لقاها لي مجرو وأمريكان صيغة سيادك سد نقيض توحيد الربوبية لقاها لي مجرته طائفة غير بني آدم عجيب